howlgalka Atlanta la dagaalanka burcadbadeeda Soomaalida markab dagaal oo ay leedahay dawladda Isbaanishka isla markaana qaybta ka howlgalka Atlanta kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqeyneed iyo iskaashi ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Midowga Yurub danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya Enrico Lefrenzo oo saxaafadda kula hadashay gudaha markabkaasi dagaal Atlanta kamida ayaa sheegtay in Midowga Yurub ay ka go'an tahay inay gacan ka geystaan dib u soo celinta hay'adaha dawliga ee Soomaaliya. We've also discussed the recent rise in waxaan ka wada hadalnay weeraradii ugu dambeeyay ee burcadbadeedu geysatay sida aan uga walaacsanahay arrintaasi sida ugu wanaagsan oo aan dawladda Soomaaliya uga caawin karno hawshaasi ka hortagga weeraradani annaga ma sii joogi karno biyaha Soomaaliya muddo dheer sida awgeed waxaan diyaar u nahay inaan Soomaaliya ka caawino sidii loo soo celin lahaa hay'adaheeda dawliga ah si ay awood ugu yeeshaan inay ilaashadaan amnigooda so that the Somalis can take care of their own security. Major General Robert McGowan oo taliyaha howlgalka Atlanta ee xeebaha dalka ayaa sheegay in shaqo wanaagsan ay ka qabteen biyaha Soomaaliya muddadii ay ka howlgalayeen isla markaana ay ka hortageen falal fara badan oo kooxaha burcadbadeed ay ka geysteen biyaha Soomaaliya asagoo sidoo kale tilmaamay in bilihii u dambeeyay weeraradii ka dhacay xeebaha dalka ay muujinayaan sida burcadbadeed ay u doonayaan in mar kale ay dib u soo laabtaan mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa Midowga Yurub ugu mahadceliyay taageerada ay siiyaan dawladda Soomaaliya asagoo sheegay in Midowga Yurub ay ka codsadeen xoojinta iyo dardargelinta howlaha looga hortagayo kalluumaysiga sharci darrada ee ka dhaca biyaha Soomaaliya. waxaan ka wada hadalnay sidii aan uga shaqeyn lahayn sidii baddeena looga ilaalin lahaa kalluumaysiga tuugada ah iyadana waxaan isla garanay inaan ka yeelano wada xaajood aan ku sii dhab qaadno sidii loo ilaalin lahaa xoolaha ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaan ka wada hadalnay shaqada ay wada qabtaan Midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya sidii looga dhigi lahaa shaqooyin muuqda loona xoojin lahaa sidii looga shaqeyn lahaa shaqo abuur dib u dhiska dalka iyo wada shaqeyn waarta tusaale ahaan sidii baddeena ay u ilaalin lahaayeen ciidamada badda Soomaaliyeed sidii aan uga shaqeyn lahayn in burcadbadeeda annagoo aan isaga difaaci lahayn tababar iyo qalabna loo siin lahaa ciidamadeena waana ku heshiinay inaan aad u sii wada shaqeyno runtii shaqo wanaagsan ay nala qabtaan Midowga Yurub tani waa mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dawladda Isbaanishka ay leedahay oo qaybta ka ah howlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda Soomaalida markabkan oo diyaaradaha ay ka dulhaadaan kaas oo taagan meel ka mid ah biyaha Soomaaliya ee badweynta Hindiya ayadoon muddadii aan dul saarnayn markabkaasi ayna dul maraysay mid ka mid ah diyaaradaha howlgalkaasi ka tirsan waxaana sidoo kale jiray doonyo yaryar oo ay qoryo saaran yihiin oo gaaf wareegayay biyaha markabkaasi uu taagan yahay. Cali Cabdiraxmaan Aadan SNTV Muqdisho.